runtii shirkadda aan ka tirsanahay ilaa iyo maalin aan dhaweyn saasay u garab taagnayd inay dhiirigeliso tashjiic u samayso ardada musaabaqada quraanka salaatu wassalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam aad baan u bogaadinayaa sida loo soo camiray xafladdan khitaamka musaabaqada quraanka waxayna muujinaysaa ahmiyadda aynu hayno in quraanka dee sharaftiisa iyo horumarkiisa aynu ka shaqayno maqaamkan wax badan uma baahno oo wara wuxuu u baahan yahay in la isu tahaynadeeyo dadkii musaabaqada ka qayb qaatay ee jaayisadaha la siinayo macallimiintii traininka soo siisay ardadaas dadkii ka soo qayb galay shirkadihii iyo dadkii dhiirigeliyey anigoo ku hadlaya magaca shirkadda Telesom iyo kaygaba runtii shirkadda aan ka tirsanahay ilaa iyo maalin aan dhaweyn saasay u garab taagnayd inay dhiirigeliso tashjiic u samayso ardada musaabaqada quraanka insha Allah waana wadaynaa waxay noo tahay sanawi bay noo tahay haddaba arrinka meesha ku xadfani waxa weeye qofku inuu xufaad noqdo oo soo baxo oo halkan jaayisad lagu siiyo muhiimaddu intaa way ka weyntahay muhiimadda rasmiga waxa weeye in quraanka la hayo weeye quraankana haddii aan xufaaddaas la soo saarin uu dabar go'aya haddaan kawaadirtaasu iska daba kicin sanadka ka dambaysa dad la soo saarin lagu tabcin waxaa ka baxaya inaan quraankii dad yaqaanaba uu warqaddaa wax ka akhriyo kitaabka mooyaane aan balle helin qof dusha ka haya midka muhiimka waa kaa ee aynu u baahannahay inaynu ilaalino ee ma aha hebel baa musaabaqadii lambarkaa galay ama jaayisad qaatay maaha taasi waa dhiirigelin weeye waa tashjiicin weeye laakiin muhiimaddu waxa weeye inaynu ilaalino jiilba jiilka uu ka dambeeyo in dad xufaadi ay ka soo baxaan oo quraanka inoo haya oo inoo ilaaliya quraankana ilaahay baaba dee ballan qaaday in la xafido